ururka lixaad guutada 18 ee kumaandooska gorgor ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa deeqdan awraashina u qaybiyay 100 qoys oo ka mid ah dadka shacabka ee ku nool gudaha deegaanka Cado Kibir ee gobolka Galgaduud. deeqdan oo isku jirta noocyada kala duwan ee raashinka ayaa gudoomiyaha deegaanka Cado Kibir Daahir Daawud Faarax waxa uu kaga madcelisay ciidanka xoogga dalka gaar ahaan ururka lixaad ee kumaandooska gorgor. muhiimad gaar ah leh in la xusana mudan gacanna inay nagu difaacayaan gacanna inay nagu qoodinayaan oo aad u jeedaan inay gacanna ay raashin iyo maaragtay adeeg aan u baahana nagu siinayaan gacanna ay dhiig noogu shubayaan oo nagu difaacayaan oo maaragtay ay qolooyinkii sharwadayaasha ahaa ee al-shabaab saa ogtihiin halka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maanta uu raashin idin qaybinayo idinna difaacayo nimanka argagixisada al-shabaab ceelasheenina way gubeen dadkeenina way afduubteen guryaheennina way gubeen shirkadihii iyo isgaarsiintiina way naga baabi'een saa ogtihiin marka koobaad aan u mahad celino ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aan maaragtay u duceyno waxaan leenahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ha noolaado kor Allah ka dhigo dawladda Allah noo awoodsiyo. taliyaha ururka lixaad ee gorgor gaashaan la Cabdi Maxamuud Soolnuug ayaa sheegay in waajibaadka ciidanka ay ka mid tahay in gacanta lagu caawiyo shacabka gacanna lagu difaaco soo uga madcelinaya xafiiska arrimaha bulshada ee isku xirka ciidanka iyo dadka shacabka. suuragal ma kula tahay qof weyn ee baaluq ah ee dhowr iyo 20 jir ama 30 ka badan jira in laga dhaadhiciyo Cado Kibir oo ku dhashay laftiidii kuwa degan waa gaalo ma suurtoobi kartaa arrinkani waa arrin ka fog waa 2 jirkii canuga marka la geeyay iskuulka waxa lagu soo bilaabay in loo geliyo in si loogu lumin lahaa diintiisi marka tii dagaalka iyo jihaadkii intaba walaalkay baa ka hadlay waxaan ku hadlayaan ku darayaa horta awlaada aan toosinna midda labaad waxaan leeyahay waxaani waa raashin ma ahin hay'ad waxay soo dhiibtay waa wax ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gacantooda soo mariyay soo dhiibeen waana rajaynaynaa intaan in ka badan inay soo gaari doonaan waa wajigii labaadan u malaynaa halkan aan imaano maanta maalintii way iga farxad badan tahay Cado Kibir waxaan u malaynaa maalintii waxa joogtay 17 ruux oo gudoomiyaha u horeeyay maantana waa ka iyadoo biyo la cabanaan ahayn wax shay lagu iibsado ama dukaan ama maqaayad furan aysan jirin sababtoo ah shilin Soomaaliya ma shaqaynayn waxa lagu iibsanayo waxay ahaayeen EVC ateenkii wax lagu iibsanayo hadday qarxiyeen ee ceelkii biyaha laga cabi lahayna ka gubeen dadkaasi ma kula tahay inay nolol damba ka rajaynayaan ha ka yaabin xataa diin sal kuma leh. qaar ka mid dadka deeqdan ka faa'iideystay ayaa ciidamada ammaanka uga madcelisay deeqdan ay soo gaarsiiyeen. deeqda ciidamada soo gaarsiiyeen walaalaheen baan soo gaarsiiyay xoogga dalka Soomaaliyeed ha noolaadeen weligood ba jireen anu ciidanka kamid ah jiray samana soo maray waxaa ugu daran u xigtay inaan naf ka doono caleen arugnay ana aduu waa soo maray xoogga dalka kamid ah anu kamid ah waa ku soo gubtay waa ku ilma dhalay alxamdulillah rabbil caalamiin hadda weesha yaryar oo hadda soo baxay iyo dawlad cusubna waxa leeyahay noolaada. deegaanka Cado Kibir ee gobolka Galgaduud waxa qayb uu ka yahay deegaanada ay ku sugayeen ciidamada kala duwan ee dawladda federaalka iyo kuwa dadka deegaanka kuwaas oo aaga deegaanka dagaal adag kula galay xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab waxaana deegaankan qayb uu ka ahaa deegaan kacdoon xoogan dadka shacabka ay ka sameeyeen isla markaasna ay ku doonayaan in ay iskaga difaacaan dhibaatada ay kala kulmayeen al-shabaab.